xildhibaan Mustafa Qodax oo hore uga tirsanaa aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hore isagoo ku sugan dalkaasi Sutagga Imaaraadka Carabta sheegay inuu ka tanaasulay xildhibaannimadii aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya deegaan ahaanna ka soo jeeda Somaliland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay gegida diyaaraduhu ka hadaan kala soo degaan ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa xildhibaanka oo warfidiyeenada kula hadlay barxadda hore ayaa waxa uu sheegay in iscasilaadiisa uu soo gudbiyay xukuumadda Somaliland isla markaasina ay ka aqbashay dowladda Somaliland ilaahay baa mahadle runtii aad baan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo muddo 4 sano iyo hal bil ah oo aan ka maqnaa magaaladii aan ku barbaaray magaaladaydii Hargeysa caasimadii Somaliland inaan maanta ku soo noqdo oon leegu soo dhaweeyo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay baxda saxaafadda madaxdii golayaasha dadkii kale ee shacabka ahaa ee soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii dareenkaygu aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay Dubai baan joogay marka muddo bilaho xilkii aan Soomaaliya ka hayay halkaasaan iskaga casilay xaflad halka lagu qabtay ayaan xilkii iskaga casilay halka aan joogan afis soo dalbaday sidii baan ku yimi marka wixii dambe waynu isaga imanaynaa maanta runtii aad baan u faraxsanahay waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta intii soo dhaweysay waan runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa aadna runtii waan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo runtii farxadda jawiga iyo muuqaalka Hargeysa iyo sameynaysa maanta iyo dadkeedu runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay waynu isiiman doonaa bahdiina saxaafaddana aad iyo aad baan runtii idinku mahad celinaya runtii waan ka mahad sheeganaya aad bay ay ila shaqeynayeen oo bulshada igu dhiirigelisay runtii inaan ku soo noqdo dalka qayb dhiirigelinteeda waxaan leeyahay macnaha soo noqoshadayda qayb weyn bay ka ahaayeen runtii isuguma ka haagsana hadalku maanta oo farxadda iga tan badan Aydarus Maxamed Caynan Goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.